balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko. dawladdu marka meesha soo tashatay markii ay soo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dawladda imaaday daaqil oo ku soo baxay ninkan qaarijiga ana taasoo qaarij ayaga howlgala ilaa dadka ayaa yaqaan intaan ku soo koray mugti kii isbedelaayo kii jaasus ah askarti dad cusub dilo keeno yani dib way naqaan in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana sidii waxa la jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan wiilka xase ka mid ahaa ay Marko ka qabtaan waxa ka mid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajow kaasoo ka shaqeynaya Xaajow Bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay Maxamed Ilka Xase in dilkaasi uu geystay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aan shakhsiyan aqaanu ahaa yani in fiican oo ahaa dawladda u shaqeynayeen waxba muusan ahayn ايش ستيشن رول كجوجي فوتوداس واسكجوجي فاميل ahaana yani waa dad aad loo yaqaan footada iyo sawirada dadkaas xilligaas gobolka dhanba laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga yaqaan banaankan joogay oo meeshii isaga station roortiisa munishibi meel la ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyin wax lagu qaban jiray anoo xagga taagan aan waxa arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo budbooda la dheey doono amesh taaganay asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraan imanka wada carreen gabigooda wallahi fulay waay shaabti iyo wixii iyo kan budbooda wax muusan hubsan ninka ku bilaabay abaar marka xabada ina anaga soo wada orad meesha ka imaanay ninkii jeefa aragnay ninkan bas wala xariisana bas ninkan soo wadnay waxa dhacay saan u dhahay ninka u dhahay telefoon soo ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa anoo meesha taagan u dhahay nimanka soo galeen wuxuu gudbinay asad markaas uu noolaa ana waa arkay ana paralyze uu noolaa yani meed ahaan uu soo tagay ninka laakiin markaas uu noolaa asad marka dadka ma sukaan yaqaanaan qaarkood si kale saaxiib waa una footada iyo wixii marka ma ku darsamin baan hadhow siisan far ii soo galin banaankan ka istaagay Maxamed Xaajiilka Xase waxa ka mid ah waxyaabaha xajiib kale ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa Jeneraal Ismaaciil oo xaruurtiisa uu saaxiib lahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka Gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulay sida xaruurtiisa oo kale آخركينا وحاو مركي ومركا كدلي وهي وجنرال إسماعيل أحمد عثمان مكيالي كدلي سيديدي اللباتنكي بشي تمنا سندكي لبدي كوني اللحي تمنكا دقمدا وابري مقالة مقدشو نين وحال جري إسماعيل جاشان اللحي أها وعن وايس شنامدا عن كامركا كتار شيخ إسماعيل مركيالو دمغش نقل لها جنون لكن سيدبروها markii dawladda ay dadkii xagga markii shaabka ay qabsadeen asal oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda oo soo hubeeyay diiwa loo sii janay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada Ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligii magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeeraan iska dhaha marka mugti ilmiisna saaxiibana ninkii aameesh dadka qabtay ku mid ah marka أنت قادر سيدي سجى جروب كذا قبتي من كاسنا حواي دتك سجى يعيدن كي دتك سيجار أو بيكسن وكمدها سجى دور مرة أنا شخصيتي يجيب بادي وأنا عن جروب يزبم كتوري عيال كيسن صاحب واحد هذا مركز دم أنت مكهلا نكى وحاسنا ويصورنا ما هذا ولا سوي وين هذا جامعة على النمي درت دو مقدش وكان الله سنة كهر يهار سنة كهر إنه يتهجر لا بيريم كهر اسماعيل أصلا إنتربول شخنا بوليس مود شن سنة لح سنة كسوريت إنك dadkii meesha waxa soo baaba inta la sleemaa moogta ninka intuu imaaday isagoo sarkaal la sii dalacsiyay oo yani Interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahaan anaga marka si hadii loo dhaho xoogaa waxa nagu jira adeernimo iyo wixii qaraabo min laakiin adeer iska dheena laakiin haddana hooshii ana bariis adeer iyo waxa inaan ana ugu dambeyn hada ninkii saaxiibkayga Hashimi afar sameeyay iyo ani shuri
dilka jenaraal ismaaciil kuma uusan ahayn maxamed xaaji keligiis waxaa ka qayb galay haashim oo ka mid ahaa shabakadda ilka case waa kan haashim oo isagana ka sheekaynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi. wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa beri isgooska shaqaalaha uu fadhiyay marka meesha laga soo dowracay haddan ciidana markaasna oo seminaarka imaada la sheegay Talyaani ma sarkaal waxa marka xaafadu soo galay xaafadiyaan kala soo dawgalnay marka taasaan ogahay. sidoo kale maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay xaaji baana oo ka mid ahaa waxgaradka magaalada marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isagiyo dhagarqabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka eebe. يعني ninkan isaga ah oo baano xaaji baano waa nin orto dhoweyda dhan lagu yaqaan markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aad ka aha de markuu masaajidka ku soo baxay masaajid yar ar-rahma Allah oo ku dhaxyaaris ar-rahmadan weyn ma aha oo wajar ku dhaxyar kale waxa jir duruqbada ku dhaxyaalo sharafada yar oo duruqbada ay ku tugtaan kii ku soo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa la soo confirm gareeyay ninka sala ala culaali. markii dambe waxay kooxda al-shabaab u soo bedeleen maxamed xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada muqdisho oo uu sheegay in wakhtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay cabdiraxmaan oo ay ku-xigeenno u hayeen cabdimajiid iyo cabdi muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sanadkii 2012. maxamed xaaji markii ugu horreysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen galadila iyo mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd Felis Macow oo ah xukunsana ku jirta xabsiga dhexe ee muqdisho. أنا شخصيا قالت عبد نمكن أن كسر جاري وحير أنا كسر جاري خلاف كي جوكتي وحير دعدي وليه كي كدب وحيدا ولا بدل على هاي قالت على الله يعني قالت لي قالت عن الله لا شخصت يرجين هذا أساسته مجال واقع وحكي خبط سيدا كلوا أساسي أو عودة قالت نمن جبت سكول نمن جب هذا أو سكول جرجر تاني حيل لكن هذا كوي قان هذا أخونا نجرا أو جور هذا هستجان والله بأنه أكتف أو كوكينا يري استشخصت صدق دين. labadii qof ee waqtigaasi la shaqeynayay maxamed xaaji hadda galad waxa uu ka baxay al-shabaab halka mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa. maxamed xaaji waxa uu ka bilaabay muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uuna muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa. dadka haldoorka uu ku dilay muqdisho waxaa ka mid ahaa jenaraal cabdullaahi maxamed sheekh xasan quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uuna jananka ku dilay masjid ku yaala waaberi isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sababo la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhowaa aagga. جنرال كان ماشي سوف فديسنا مقرب كعشاء وحو كتكنا marka maqribka ma la dili karo oo degmadu u dhow yahay degmadana ciyaalkan racad ka joogo aagaas isha madow waata marka waa cisho marka niyo dhowr mar isku daynay waxa la isku heshiiyay hadii ninka bubuk la maqlo degmadu u dhowdahay isgoosada day xiraan inta laga baxa ragiina la lugayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuqa xeelada la lahaado oo lagu baxsada jiro oo la calada wadooyin kala xirxiro oo bajaajta la barbaaray dhalinyarada iyagoo waxooda wataan meesha la soo maray. dilka jenaraal quruurux waxa uu ka mid ahaa dhagarii ugu cuslaa uu sameeyey maxamed xaaji ilka case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday laba koox oo bamgacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada waaberi iyo bar ciidan oo ka dhoweyd meesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu taleefanada ka baaqay tuuray bamgacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka. jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shirc anaga waxaan dhahay shirc hoosh adankan iyo taala soo qabsan la adankan iyo taala marka muqdisho idinka dhex joogna waxaan wixii hub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh adanka wada جنرالك مركا هوش أنا وصل شوتي نيوادا مقدس وكل يخان بدأ أنا سلمان وصل شوتي سلمان ترى وحير نيو جنرال كرتا حل ملوجي هذه كر
laban ma lagu aadi karo saddex lagu aadaa ilaa laba wata marka staafka laba waay halna isaga waay nin walba shaqadiisa qabsada nin walba haluu ku aadaa marka waxaan ku fikiray degmada aa u dhow waxaan dhahay markan iyo macquul maaha degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah xataa albaabka isaga dhufta say barto intay difaac ku galaan xabada ay u tuuraan ee isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyay degmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo buundadana gaaraya meesha u yaalo jidka day dhacday soo dhaqaajinayaan ayagana aan ku dhufana marka warkii la isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo la soo diyaar garoobay saddex marka lagu soo diyaar garoobay ugaaska caawab hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxalli jiray jananka hal staff wata bas sayidka isku tugtay markii cishaha oo laga bixi rabo waa u baaqayna dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan ku wada dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyo saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaanba in jug marka xabada waa la wada yeerna waqti ciidanka yaa tuuray meeshina ku dhax qarsantaa la rabay kadib sidii jugtii dhacday ku qaban ugaaska iskooldan soo siiyay allah u naxariistay jenaraal maxamuud xaaji cali oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada ayaa ka mid ahaa dadkii uu dilay maxamed xaaji waxaana uu ku dilay degmada boondheere xilli uu jananku hor fadhiyay gurigiisa waxaa soo gudbiyey wiil mootoolaa soo gudbiyey oo dhahay nin janana meeshaan joogo markaan tagay oo aan shaqada soo fiirsanay dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen boondheere meesha ugu xarunta badan waa dowladda maxaa la dhihi jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxaltoole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo adkaatay marka waxaan ninkan general ma okay maxaa ninka banaanka iska fadhiy markaan general ma aan dhahnay oo ku qaldamaysid hore waxa ma ogidee magaciisa sheegayna xataa in shaqaas qaado ninka janan ma ninka sarkaal waa dhici karto ninka janan albaabkooda soo fadhiisanay hal wiil la fadhiisanay ma jiraan meesha wax ma baro cunin buuligeeda taasoo kalsoonidaas isku qabaa bas okay waay marka galab aan rabnay galab waan soo rigalwaysi subax guriga loo dhisaya subax ani iyo shoori iyo waxa imaanay iyo ugaas shaqada ilaa shaqajana ma mug ilmo yareer ma kaysan kartid waa kaaga dhaawacmi karaan ka dhiman karaan ragii waaweynaad in xaniyooda fuulaha markaan meesha imaanay jananka isaga ah jananka waa fadhiya subax waa haddii ani iyo ugaasan xiranay shooriina waa u xiran tahay shoori nooha xag u taalo noohadan ka qaadan aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo siinaade naga xirtaan isgooska baxbada dhacamay waa la bixi karaan ku yiri waa jafayna dadna la dhaafan oo tuureenaan bas go'aan ku qaadanay noohadan qaadanay haddaan aadnaba waxa arkoyaa guduhu galay dhagaxad xagga ag marnay guruhu galay ninka shooriga kor naga daawana maxaa dhahay ninka guriga ugu gashan guriga wax ku jirman aqaan oo kaadaan waxa soo baxay janankii oo janankiisa wata oo dharkii militariga wata ima aqaaniye waxa digaha ugu toban iskoolo biljam fiican wata imid kale staff ul wata yani qor wata aka wata asoo soo baxay horaan ma soo baxay inaan la socdo ninka weyn iska ilaali iskoolo wata bas noo haday galeen anagoo aan filayno faqidana soo dhaxbixin ما تهاوني بمركانك اسفيرين واصدافنا يعني هوش اسلام كسو بان سي كدونين نقد من كان ميشو نو فدين عادي اسكا هذا بس كولو سو قاتي اسغا خلستهده لا دارك ودي بان ودغنا مالين كلابات مالين كلابات اسن سيدي سو بلانك فديه بوك ان سيني ما هذا لابتوب صار لابتوب كان سو دفاي soo array koofiyan aan kool galay marwalba aan wala yaqaanay koofiyan kool galay soo array xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa oo khidmaynta shacabka ayay ku dileen wada ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ku soo deganay gaari kama istabanay كاي واسونا كلا بيكو سارين نك كلا إلى أنا بجناي نك ما هذا قلنا صار بس هذا قل نك كلا إلى الله أنا فرنا صاحبه ومشغول أنا
ninka hadduu uu taabto waa mashquulsan mugta maskaxiisa dhan waxiisa dil waa la gaadi karaa marka isaga ninka kale inuu marka ninka ilaaliyo wax dilay inuu ilaaliyo asaa laga rabaa soo waa kana ninka kana xajagin ana galay xajin ana gaadaba ana galay ninka gaar dameer meesha soo dhax galay abno kala baa istaaji samiyaad dash hadhay kan kale doo dhahay baa ku qabtay soo dagaana gaaraysan soo dayo intuu soo degtay uu mantagayo fadhiistay kacayo isku darsamay soo waxba markaa ogaad maxaa ka diraa ninka jidna waa la maraa mugta tina doo aan la iska harlaa ninka waxna ma lagu heynin aan ma la aqoonsanin kadib waxa maqlaynaa gadaalka maqla doona ninka oo dhahay war hebera nina telefoonkood la dhageysaday anaga meesha iska marin dabki war ninkii isaga ahaa ninka kale waa la saarnaaye see loo dhaafo marka ninka kale war ninka kale lama aqoonsanin alla diban ka fahmi doona ninka xataa inuu wax ahaa falowla aan ogaanin waa dhigay naftirkiisa isaga diban ka ogaan doona ninka gaari la saarnaa inuu shaqada wax kala ahaa yani xeerlaali maxkamad uu naftirku shaqeynay ogaani factor laakiin lama hubin sidoo kale dilka taliyay saldhigga Wardhiigle ayuu wax ku ogaa in kastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda wax dishay wuxuu ku doodayaa in kooxda wax dishay u dejiyeen xeelad ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale Saalax uu meesha mooto ku barbaray mooto barbarad laga dhigay dabada taloomara hubkii uu soo dahay dib u imaan ay qaateen furtay mooto ugaas meesha wuxuu ku barbaraa Saalax wuxuu ka dhigaa in mooto meesha lagu barbaraa abaari meesha jooga ragaas mooto ku wada saase umaraan taleefish ku dhawaaliyo bishan ka soo hanayay sometimes waxa arkaysaa qofka anaga cunna xataa ma naqaan maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii Aamina oo ahayd baare ka tirsanayd Nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markan ka horeysay la soo xiray maxamed xaaji Aamina meel aan ku arka la ana ma dhaafeen dadku qowl number 1 ka ah xataa ana ogta taas waqti faham Aamina rag fara badan horta xaniya qabato oo markii meesha joogtay wax badan ay halaysan waxa kamid ah yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare تقان محمد marka milyan qof baar oo soo noqoto in hal uu fiirinayo Aamina waxay u tin ku ahayd al-shabaab waxayna dhamaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay Aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkayeen qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi maxamed xaaji ilkaxase waxa uu sheegay in kooxda Aamina dishay oo isagu geeyay goobta ayna hagayso qof dumar oo is yaqaaneen mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyay sida uu sheegay ugaaska oo qofka sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo Cabdullaahi Kuusane oo isagana sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilayna ay watay Maryan oo Cabdullaahi Kuusane hooyadiis isla markaana xaaska uu qaba Salmaan oo kamida shabakadan la hayo kiiska Aamina wuxuu u dhacay saan u sheegay hal shay baan ku dirin waa xaqiiq in la soo xeeyay oo la dhaciyalka wad geemish maalin cad wax ku cuni kartid in aniga ugaas iyo groupkiisa aan waday oo aan dhex geemisha aan banaanka kista dhawash soo qabta gudahan ku jira Kuusane oo Kuusane markaasna uu hooyadiisa wacay naaga oo sheegaysa arinta waxaana shaki iga jirin Aamina qofka kalaaska la fadhiyo inuu gudbiyo hadalkan hatta banaanka joogan ku dhaana aragtida marka kaasha fasalka la fadhiinayta waanday waxaana say qiyaasaya qofka fasalka la fadhiyo inuu soo kacay soo istaagay oo banaanka uu soo baxay oo Kuusana la hadlay kadibna ku laabtay yaani tilmaantu bixinay kadibna waa saasay u dhacday dumar waa Kuusana la soo hada shay kadib soo laabatay kadibna kuwaas ay saddex mar soo galeen Kuusana wuxuu ka istaagay albaabki labadan hoosha gashay yaani laba ku gashay uu saddex ku socday dadkaas intii wax fahma tan kala taagna dadka warkii ordaasay Kuusana oo fiirsanay
halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay Aamina ee lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay Aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad Aamino waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kulliyadda shareecada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin Maxamed Xaaji Ilka Xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyay ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgallada noocaasa ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirka waa balaarta sariirka yani wuu baabay hadda fashalkii Sucayb iyo waxa ku dhacay fashal fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka checkpointooda la badiyay waxay jirtay mar badi ex control aan gaarin xaniyaan lahayn waqti hadda ex control dhaafsatay xataa galmudugna kan wuxuu ku sameeyo masaalan hadda masaalan استراتيجية أمنية ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro boolis u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay samaysay wax kasta oo ay ku xaqiijinayso ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisanimo ee gaadiidka lagu horjeeray gaadiidka sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dawladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin Maxamed Xaaji Ilka Xase isagoo macallin jaamacadeed ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inay dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo iska jirta mucjiso aan saxood marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku dishay maalin kala daymaad caadi qalbiga wax marka dhaawaa kala yaacay ma aqaanani isla maalinka birmaanka meesha imaan shaaku cabeen dadka ka shaqeynaa marka dilka dadka kaliya kuma ekayn Maxamed waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisanimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaar inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriyay al-shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idin dhigaya ee dhamaystira taasoo uu la jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhamaystirayaan marka dhaanayaan wadan iyo inoo laba wiil oo cusub la soo wadaa aad u fiican oo ladan ka soo jikmay bal shaqo ma bari kartaan wadaas wiil hada qof darwala u sameeyo shaqo ma bari kartaan ha aan loo keenaa marka dadka marka dad tabar ahaan dhameystiran laakiin baraatikada ma laha fiyor ahaan way dhameystiran wala baraa marka shaqada kama keensana mas waladan keena anaga wadan shaqada haye waladan baraa okay ana garaada iyo wixii oo ku dhigan ko dhameystiran meesha ka dhaha furo kan darwal ku xal xaga istaagaysa aad wax ka soo ugu haye bash wala bilaabay ninka maalinka labaad qof kala keena maalinka saddexaad marka active ay noqdaan isku filantii markii loo wadaatan marka magacaan kula shaqeynaa ragaas anad Abdullah man kula shaqeynaa ma yaqaan laakiin dadka uu tababarka noocaas siiyay waxa kamid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaasoo hortiisa dilal ku sameeyay marka waxa imaadinay hoow in la baxaa la rabaa oo maxaa la jiro dooro la aado waxaan dhahay ana markii ilaa hadda ana in lambar leen kala marayna koodhe waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala marayna ani ziyaado kale isoo gelinaan dhahay xamar hadaan ka baxo inoo dadka ayagu macnaa horta waxay ku leeyihiin meeshaas aada dheh tahriiba aada dheh inta ka baxay dheh wax saas camal sheeg laakiin anna waan dareensanahay adina waxaan isleeyahay maxaa la jirnay
qof waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system waa kaa qaldami doonaa waalid xaggiisa ahaato mise si kale ha noqotoba waxaa la yidhaha inaad soo baxdo maxaa la dhihi jiray meeshaas imaadida oo aad casharo qaadatida muhiim ah waxaan dhahnay aan xamarka ma bixi karo haweenna kama bixi karo maalinna kama bixi karo xamar dhexdiisa waxaan dhahay meeshaas haddii taga maxaa la isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaadaya wax kaloo meeshaas hadda maanta ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxaa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiiyo cashare oo wax fahansiin iyo wax kale uma baahnaan ahayn ma fahantay aniga inaan hadda maanta cashare ay akhrisida wax iga dhaadhicisay ani hadda uma baahnaan ahay marka haddii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaana aysan naga noqonin aan ahay mis wuxuu dhahay marka kulley waa isku noqdeen kulley raggaas waxaa waaye rag imtixaan waaye waa isku laabteen marka waxaa lahay horta ninka waa laga wareysanaa barnaamijyada ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay anana aan ogeyn laakiinse ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen waxaan dhihi jiray in ay shayba noqotoba gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray inay shaqada iyo qaabkeeda iyo nooci loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiiyaa seel ii fahansiinaa ninkaasaa macnaha maxaa la dhihi jiray oo saaxiibkaaga aa raacaysaa soo maraatig ahaanaad u fahmaya carab iyo koox la socota oo hogaaminaya maxamed xaajiilka xase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysay ka ganacsiga jaadka agaarka siliga Ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhammaantood u dhixi waayeen bastooladihii ay wateen waa kuwan kooxdii bastooladu u dhixi waayeen oo mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhaxay horta intaan aqaano horta waxayna hayeen ilkaas carab axmed iyo aniga yaxya oo laakiin uu Ismaaciil saxda markii oo islaantan inta la aadan ka hor Axmed ayaan isku xiray ilkaas wuxuu dhahay waxa la shaqeynaysaa ninkan kula shaqeynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo irgada wax soo dooratay iyo waa liisha nolol sharaxay irgada soo dooratay islaantaas ayaan ina aadina rabnaa waayahay ayaa dhahay Axmed ayaa kula jiro dhahay Axmed iyo aniga waa soo aadni marka hore ilkaas ayaa ibar islaanta jaada yagada irgada soo dooratay ii sheeg Axmed isna wuu bar laakiin aniga markii dambe Axmed ayaa israacin waa soo waaneenay waa iimaaneen marna way maqnid ida maqnid oo la way baaqati marna markaa aadna oo ida inta markii la helo kadib waa la waanay maalinka dambe siin ugu dambeysay waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dugtay kadib meeshii markaa tagnay oo irtijaadka kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyaal rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii ka tibeen kadib anaga waa ka soo tagnay waa ka soo cararnay meeshii xoogaa yar buuq yar ka meeshii waa ka soo kala cararnay kadibna anagoo carreena ayaa ciidamada dawladda dhaxda u galnay horta muddo waan ka soo qaaday waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin bacaad ahayd meesha ku tiji iga digeen adig 10 daqiiqo ma soo wareegan soo qaylay soo baxay ilkaasa niyo waa baasha ka halawday inuu ka gaaro meesha ka tageen dad ha qaadan koors daasho shaqo qaadan haybayaan ay mana diidi kartid waa soo qaaday asoo kontaroolka ku soo dhacay marka kontaroolka askarta nasteexo ku soo dhacay niyo